السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسان أصحابتنا شرفت iyo qiimaha badanow toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa sidii program computerka koogu jiray aad iskaga tuuri lahayd computerka programka ku jiro aad iskaga tuuri lahayd ayaan soo qaadan doonaa. waxaan sameynaynaa marka programkan hadda format factory ay ku qoran tahay hadii tusaale ahaan aan ku dhufto kadibna aan delete kama baxayso computerka wali way ku jirtaa. marka tusaale waxaan loo baahan yahay computerka hadii program aadan rabin ama programka uu keenayay computerka jamgar uu ku keenayay uu jiro waxa sameyn kartaa wado fudud. tusaale hadda markaan ka hadlayo kana ku dhufanayna delete aan hayna macnaheedu ma aan kama baxayso. tusaale hadda aan idin tuso uu baxay programka laakiin wali gudaha uu ku sii jira halkan aan ku sii dhufano kadib waxaan qoraynaa format factory waa shaqeynaysaa caadi u shaqeynaysaa. ومجد waxaad ku sii dhifan kartaa control panel aad tagaysaa. control panel markaad tagto waxyaabahaas ku soo baxaya programyo badan ba halkan ku soo baxaya kadib waxa way control panel ama all control panel sida control panel iskaga dhufan anaga halkaan markaan imaano waxa way uninstall program ayaa ku qoran kadib waa click ayaa siinaysaa waxaad imaanaysaa free excel markaa imaato waxaad leedahay uninstallation markaa ku dhufto yes ayaa leedahay waxaa ku soo bixi doonaa you want miyaad rabtaa inaad gebi ahaantiisba aad iska tuurto oo aad computerkaaga bixismaad rabtaa oo leeyahay computerkaaga gebi ahaantiisba inaad ka saarto ma rabtaa. haddii aadan rabin no aad leedahay haddii aad rabtana yes ayaa leedahay kadib waxa weeyaan waa free excel logo was successfully removed from your computer aad leeyahay. marka free excel login waad ku dhufatay computer markaa ku dhufto gebi ahaantiiba asaga waad iska saartay. aad baad u mahadsan tahay daawashadaada iyo waliba waxaan u maleynayaa inaad wax ka faa'iiday. waxaan ka codsanaynaa inaad adiguna subscribe aad noo saarto kulan wanaagsan oo xiiso leh ayaa idin leeyahay.